عليه الصلاة والسلام أيام مالمها كمذا وحال سمر يا جنازة مركز النبي يري مستريح أو مستراح منه لقد نست أما كان نست يدوم النقون يميت كالله وحيد صحابة النبي الله مستريح يا مستراح منه ما نفهمين أنه شيء محل لقوده نبي وحور عليه الصلاة والسلام أضون كمؤمن كهار وخير كأه مركو دينتو الدنيا دا نصب كذا يهم كذا وكان نستايو نحريس إلهي بوجوره الضوء ماذا دينتي إلهي الضوء ماذا يسأها بالله بضع قيب النقاني إن الدنيا دا لب كذا يرفات كذا يوالبهار كذا كان نستا وجري دا كان نستاون جورا نحريس إلهي يرحم ديس يجنة ديس midka labaadna waxa way mustaraah minhu mid asagu laga nasanayo nabi wuxuu yastariihu minhu albilad walibad washajar wadawab waxa kan nasanaya dhulka ilaahay waxa kan nasanaya adoomada ilaahay waxa kan nasanaya geedaha iyo xayawaanaadka cidooda intu waa kan nasanaya nin lagu dhibana ay adoomada ku dhibanaayeen bini aadamku oo xayawaanka kale nool oo ku dhibana oo dhulku oo ku dhibana oo geeriyo dhirtu ay ku dhibanaayeen buu noqday geerida uu geeriyooday asagoo kuma nasanna waa laga nastay adoomada muslimiinta ay u dhibayay baa ka nastay dhulku ilaahay uu ku caasinayay baa ka nastay dhirta ilaahay agtiisa uu ku caasinayay baa ka nastay macsiyadiisa iyo dulmigiisa roob la'aanta iyo abaaraha qulqulatooyinka xanuunaha cudurada ay ku dhacayaan saga sababkiisa ahad walba ka nasanay ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa markay dhintaan adduunyada dhibkeeda iyo rafaaqada ka nasta Allah nagu daro naga dhigo naxariista ilaahayna u guura ilaahay nagama dhigo kuwa laga nastay adoomadu iyo dhulku iyo geeduhu iyo dhirtu iyo xayawaanadku ay ka nastaan maxaa yeelay oo taa keenaya